waxgaradka beesha weyteen oo ku sugan magaalada Jigjiga ayaa waxay si cad ugu cambaareeyeen maamulka iyo xukuumadda DDS ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar. odayaashan iyo aqoon-yahankan ayaa waxay ka cabanayeen in aan la marinin saamigii ay lahaayeen markii la fiiriyay istiraatiijiyad ahaan iyo baaxad ahaan dhulka ay degaan. Suldaan Maxamed Cabdi Gaas oo ku hadlayay afka odayaashan ayaa yiri waxaan madaxweynaha u sheegayaa inaan haddii uu maanta muxuu ahay dawladda deegaanka hadduu weyteen baaqooda uu hoos u fiirin waayo oo uu qaban waayo waxaanu saaraynaa calaamatu su'aal baan saaraynaa taageerada madaxweynaha calaamatu su'aal baan saaraynaa. bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah odayaasha beesha weyteen waxaan ku baaqayaa dawladda deegaanka madaxweynaha Mustafa uu madaxweynaha u yahay inaanu taageersanayn maamulka markii uu qabtay inaanu taageersanayn hadeerna aan taageersanahay haddaan beesha weyteennahay waxaanu baaq u soo jeedinaynaa inaanu taageernay mar labaad nabadgelyada gobolka kililka inaanu taageernay waxaanu ku baaqaynaa inaan muxuu ahaye shirka uu ku baaqay madaxweynuhu inaanu taageernay isagoo la turxaan bixinayo inaan taageernay waxaanu ku baaqaynaa tabashadanada beesha weyteen waxay tabanaysaa xuquuqdii ay ku lahayd deegaanka dawlad deegaanka Soomaalida inaanaan ku haysanin haba yaraatee waxba inaanaan ku haysanin waxaanu ku baaqaynaa haddaan beesha odayaasha beesha weyteennahay inaanu doonayno inaa madaxweynuhu waxaan xaq u leenahay ee beesha weyteen ay leedahay ina muxuu ahaye inaan Soomaalida oo la midnahay oo nala siiyo beesha ina nala siiyo waxaan ku baaqaynaa inuu weyteenku inuu degan yahay kililka meel alla meeshii laga rabo qoys kasta oo degan oo Soomaaliyeed inuu ka mid yahay waxaan ku baaqaynaa haddaan odayaasha weyteennahay inaanu degannahay ilaha dhaqaalaha meesha ugu xoog badan waxaanu ku baaqaynaa inaan waxba ka weynay dawladda muxuu ahaye gobolada inaan waxba ka weynay inta marka aan ka gudbo waxaan leeyahay anigu haddaan odayaashii weyteenahay aqoon-yahankanagu ma wasiir buusan noqon karin annaga aqoon-yahankanagu waxaan u aragnay odayaasha haddaan nahay inuusan wasiir noqon karin waxaan u aragnay askariganagu markii la dallacsiinayo askarta miini baan ka daawanaay inaan la dallacsiinin askartanada dagaalada ku dhammaaday ee naku yiri inaan la dallacsiinin ka dhaawaca iyo ka kala midna inaan la dallacsiinin waxaanu ku baaqaynaa odayaasha haddaan nahay miyaana odayaashu ka mid noqon karin odayaasha guurtida ee muxuu ahaayay kililka miyaana ka mid noqon karin miyayna qaban karin odayaasha weyteen aqoon-yahankanagu miyuusan wasiir noqon karin waxaan madaxweynaha u sheegayaa inaan haddii uu maanta muxuu ahay dawladda deegaanka hadduu weyteen baaqooda uu hoos u fiirin waayo oo uu qaban waayo waxaanu saaraynaa calaamatu su'aal baan saaraynaa taageerada madaxweynaha calaamatu su'aal baan saaraynaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ugu dambayn bayaankii ka soo baxay kulankii dhowrta maalin socday ee odayaasha iyo waxgaradka beesha weyteen ayaa waxaa akhriyay Axmed Muuse. bismillaahi raxmaani raxiim baaq kulan degdeg ah isku yimaadeen beesha weyteen dhammaan odayaasha iyo waxgaradka beesha weyteen waxay ku taageereen madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar isbeddelkii waddanka ka dhacay tan iyo xilligaasna waxa way taageersanaayeen hase yeeshee waayadan dambe waxa yimiday waxoogaa cabasho ah in saamigaan ku lahayn xukuumadda heer deegaan heer gobol ilaa heer maamul magaalo aanan ku haysanin kulankaas kabacdi markii la isla falanqeeyey waxaan soo saarnay qodobadan hoos ku xusan kow saamiga matalaadda xukuumadda ay ku leenahay beesha weyteen ay ku lahayd oo ah ku-xigeen iyo wixii ka sii hooseeya laba saamiga maamulada heer gobol oo aanu gebi ahaanba ka maqannahay saamiga dhaqaale oo aan ku lahayn deegaanka annagoo ah dadka degan isha dhaqaale ee deegaanka gaar ahaan buurta Kaaramarda oo aan ka qatannahay hadday tahay shaqaale hadday tahay xuquuq kale intaba gunaanad waxaan ku baaqaynaa
ama aan ka codsanayna maaragtay dowladda deegaanka inay arrimaha iyaga hoos u eegaan oo tabashada beesha ay isha ku hayaan wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim annagu haddaan nahay beesha weyteen sideedaba horta waxaan degnaa 4 gobol ayaan degnaa ma jirto Soomaali beel 4 gobol inta degto haddana 4 gobol ka qatan marka madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu arrinteeda hoos u eego wabillahi tawfiiq